labaad ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier oo maanta ka dhacay Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa isla markaasina lagu soo dooranayay hoggaanka sare ee ururka ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Waraabe iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ahaa hadaladoodii waxaanu baahanahay mar walba wacyigeena horta inuu sareeyo waxaanu baahanahay sanad kasta iyo bil kasta inoo bilataba inuu wixii aynu dawladeedana kobcino saxaafadda la kobciyo qaran walba wuxuu u baahan yahay in sumcadiisa la ilaaliyo waxa weyn wariyaasha ama saxaafaddu ama TV hadday tahay maartay journal tayba nooc doonta haato ama waxaanu soo kordhay imika muxuha website-da يعني waxaan u baahanahay wax walba in ka sarreysino qaranka oo qaranka magaciisa sharciisa ilaalino qofku hadduu wax walba iskaga hadalna inaan qiimeyn waxa meesha ka dambeeya waxa weyn umad noqon mayno dal noqon mayno ka wasaarad ahaan annagu horta waan ku cusubnahay kulli waxaan soo dhaweynaynaa shirweynaha waa soo dhaweynaynaa waxa ka soo baxana waa soo dhaweynaynaa saxaafadda dhammaanteed mid dawliya iyo mid madax bannaanbana iyagana waxaanu leenahay weji wanaagsan iyo wada shaqayn wanaagsan ayaanu idinku qaabilaynaa aniga iyo wasiirkuba waana ida hambaliyada waxaan waa kongreskii lixaad baleeyay waa hambaliyada leeyahay halka baan soo maro waxaan arkay qorayda ka jabtay baan kooga taagtaagan waxaan in yarna ma yoona way haystaan wala saxaafadda iyo maanta way haystaan laakiin anoo kor u qaadi maayo oogtahay gabagabadii shirkani ayaa waxaa lagu doortay hoggaanka sare ee Soldier oo ka kooban 15 xubnood waxaana gudoomiye mar labaad loo doortay Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto halka gudoomiye ku-xigeenna loo doortay Yaxye Sheekh Ismaaciil geesta kale qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta ayaa waxa ay saluug ka muujiyeen isla markaasina dadafeeyeen hanaanka uu shirku u qabsoomay waxaana shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa ku sheegeen in shirku uu aftuuban yahay cid gaar ah garabkani waa garabka badbaadada ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier horey waxa lagu doortay qol madow gudoomiyaha imika xil ka dhamaaday iyo xubnaha boardka waxay rabaan inay mar labaad ku soo noqdaan 3 sano imika la soo dhaafay wuxuu qorshahoogu in wax ka bedel iyo horumar lagu sameeyo inamada xirfadlayaasha warbaahinta tiimay dhicin qawaaniinta Soldier iyo xeerarka dalku yeelana ma ixtiraamin runtii waan ku cambaarayna madaxda madasha fadhida waan ku wargelinay saxaafadii Soomaaliland ee Soldier laba garab ay u kala jabtay garabkii kalena madaxtooyada ka qayb gashay annaguna inaanu shir xaaraana u xalaalayno waanu diidnay waanu ka soo horjeedsanay fariintaani soo gudbinayna waxa weeye halkii aad noo dirtay man idin joognaa halkan waxa ka socda ambassador shir xaaraana oo in yar oo farakutirisa ay doonayaan inay ku soo doortaan nin horeba meel xun uga riday Soldier waanu doonaynay inaanu ka saxno khaladkii uu ka galay saxafiyiinta Soomaaliland halkan waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka oo runtii aad ugu fashilmay oo aanay ahayn inuu ka soo qayb galo iyadoo uu arko warbaahintii oo ku kala qaybsan shirkan waxay ahayd inuu gaar uga joogo in badan waxaanu isweydiinaynay gudoomiyahay xilku ka dhamaaday meesha uu awoodda iyo dhiirigelinta intan leeg uu ka helay meesha ay tahay ciddan taageeraysa ee dabada ka wada ee dhinac walba dhinac taagan waxay tahay way kalsooni inta leeg oo meeshan 100 oo wariya diidan yihiin 80 qof kuma qabteen haddaanu kalsooni badan qabin tiimaanta cadaatay waxaan halkan ka sheegayaa shirkaasi nidaamka loo soo abaabulay iyo qaabka looga soo qayb galay iyo sida hawsha loo wado ma aha mid waafaqsan xeerkii ururka iyo kii saxaafadda midna waxaanu aragnaa inuu yahay shir aftuuban inuu yahay mid lagu cumaamadayo hoggaan aan loogu talagelin inuu nidaam sharciga ku hogaamiyo ururka waxaan tilmaamayaa oo aan farta ku fiiqayaa in shirkaasi xubnaha lagu soo casuumay ee ergooyinka ku matalaya ay badi yihiin dad shakhsiyaadkooda loo soo casuumay Cali Maxamed Xuseen Zab TV Hargeysa